dhammaan marti sharafka qiimaha leh ee ka soo qayb galay discussion waa maanta yani kulay waxaan ka wada munaaqashoonaynaa ama ka wada hadlaynaa maamulkii iskuulka iyo macallimiintii iyo waalidiintii oo isku yimid waxayna maanta isugu yimideen kulan ah in laga wada hadlo wixii noo qabsoomay iyo waxa soo socdaba insha Allah ta'ala marka barnaamijkeena waa iska bilaabanayna hadii Ilaahay raado kulay xaflad ma aha laakiin waa discussion soo maamulka marka hore idin sheegay marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa maamulka iskuulka فلينو كلمتين كير هذا كان. السلام عليكم ورحمة. والسلام عليكم من الكوميونتي. هذا وما سنتين وقت كان سيسان إن شاء الله وحبونا تعمل كما قاعدين ديال وسوكو بينا سي عداين كوش جبل مهم دوّن والدكي لابد إن عمارة والدكي ومعلمينتي إن السؤال وهذا وكالجر نقطة ديال واحد كده إن from time to time الكلمة oo la isweydiiyo xaga xmaraya inta ku gaabiyo ilmaha maxaa laga caawin karaa in programka labada dhinac uu ka socdo macalinka dhabtaana waa waalidka iskuulku caawinayo kaliya waa kaabe marka insha Allah hawsha guriga ka socota iyo tan iskuulka inay soo waafaqaan waa inta on marka hadii ilmuhu guriga ku fiican yahay xaga akhlaaqda iyo maartay tarbiyada iyo waxa hadii guriga laga soo dhiso iskuulkuna ku fiicnaanaya saas la mid hadii iskuulku hawl fiican ka socoto إن شاء الله قولوا إني سامين كويلة تاني جينا. كسادين بدل إيه وحاربنا المهن ما هكلي أنا واحد برنو ماتي ساينس وحين الله بركريمة عم القرآن الحفظي وهنا كم مقدان علمي مقطع وين مقدان علمي إن شاء الله الله آي مستقبل كور احترام له إيه مارتي والدك احترام كيسي إنه مارتي كل كويناتو ده كلا ده شيء درسك إنه أنا حريص لأن مقدان بركة هل كان كل يوم ليش أنا نويا على تبالها يا waxay ugu qornaa maxay ahayd valueska iskuulka markaan bilaabayni hal arday ma joogin waxaan meesha ugu qornay reminder in aanay isxasuusino waxaan u sameeynay ma ahayn risq ka soo raadi halkan risq ma soo raadi aniga muxtaar ahaan kulay halkan duruufan ku arkay iskuulaadkii waxyaalaha marka waxaan islaa wax yar oo ama la sameeyaa ka duwan wixii kale ama dadka kale caalamka ku koobiyeenaa wixii nagu dhaamaan mugta wixii diin kama qaadanayna kulay waxaan ka hadlaa wixii maadi marka insha Allah halkan waxaan ku qoran values ka kamid yihiin transparency accountability compassion kelmadda compassion Soomaaliga ma aqaan Soomaaliga waxay ku noqonayso isu tourism ay noqonaysaa ma aqaan dadku inay isu danqadaan moogta waxyaalaha dhaqankeena waxay ka maqanay kamid tahay qalafsanaanta anaga Soomaalidan aad maartan ugu badanta marka kulli waana culture-ka wuxuu ka soo bilaadaa guriga moogta umadna waa guriyaha soo la sugay kulay moogta hadii cid walba gurigeeda dad ka soo baxay dad quality leeyihiin ciidaha soo la sugay umada ka kooban tahay xaafad ka kooban tahay marka way hagaagaysaa aniga aaminsanahay hadii guri walba ka soo baxa dad hagaagsan macnaheedu markaan taariikh gadaal u sii fiirino wadankii burburay Soomaaliya wax badan ku soo noolaa intaan ka tigin moogta marka waxaad arkaysaa dhacdooyinkan soo marxa kamid ah hooyo soo bilaqaysatay meeshii jaamacadii umada wax lagu baray waxay soo qaadatay miiskii aabba markaa maalintii waan joogay meesha moogta wuu istaajiyey marka wuxuu yidhi raallo xagee ka keentay miiskan halkaasaa laga soo bilaqaysanaya tiri moogta waa xagee jaamacaddi ma ka soo qaada haa aduu caruur ma leedu yidhi haa hadhowdii maxay wax ku dhiganayaan uu yidhi ilmaha maxay wax ku dhigan doonaan way istaagtay moogta hal jawaabay siisa marka waa naga daaytay kii markii horeba keenay yaa keeni doonay tiri waan iska dhaaqday waxay way qaadatay gurigeeda la aaday moogta marka culture qalafsan waaye caalamkuna waxa waa qashinkeena wadada ku tuuri karin qof baa ku qabanaya oo kale maxaa ku tuuraysaa meesha moogta waa wixii ka dhaxeeyay dadku way ilaashanayaan annaguna wixii naga dhaxeeyay waan ku tumanaa guryaha u fiirso hortooda sibir lama saaro sooma labada cid iska soo horjeeday dhowr baa oo sibir way awoodi kartaa inay isku dardarsato wadada inay hagaagsato moogta laakiin cidna iskama le wadadaas yaa iskale who cares wax iskale ma jiraan waxa wixii dadka ka dhaxeeyay who cares ay noqotay siyaasigu waa who cares wuxuu ku faanaa muxuu asiga maartay dhacay iyo wuxuu boobo kaliya culture-keeni dhamaa wuxuu noqday mid corruption ku dhacay moogta isu danqasho ma laha marka ilmahaas yar tolo ma bedeli karnaa iga ahayd moogta waxa kaloo igu taagnaa waxay ahayd markaa qurbaha joogan la yaabi jiray ilmaheena markaa wadooyinka mareen waa ku dhegdhegnaa waa celinaa dhinacyadan haysanaa kuley dadka qurbaha soo mara way ogyihiin laakiin ilmaha kale oo ajnabiga marka laga reebo madowga
madowga fawda kulli meel joogaan xaafadoodu waa xaafadahan degna waa meelaha ugu liitay kuwa marka laga soo tago ummadaha kale wax badan inay dhaamaan disciplineka ilmihii yara haddaa caawiso uu ku mahad celinaya taankii ku leeyahay why because waalidkii aan ka yeelaynin inuu iska socdo waa in wax loo qabtay inuu macna appreciation muujiyo waa moogta marka ilmaha sirka taankii iyo walka macallimiintu waan ka codsaday inay baraan ayaga dhexdooda wax kala qaataan inay isu mahad celiyaan moogta inay macnaha ay qofka kaleeto inuu garooshiyo u muujiyo moogta marka insha allah arrintan iskuul keliya ma aha waxaan isku dayaynaa waa culture moogta inaan wanaag qaadano culimo badan oo ka hadashana waana kaa halkaa masaajida xataa ka hadlo ilaa gaalada wax badan ay islaamka dhaqankii ka qaateen oo ay nooga fiican yihiin moogta gaalnimadooda meeshooda u taalo laakiin humanityga maaragtay wixii macnaha wax badan ay nagu dhaamaan nimankaa dadkaa marka annagaan asal u ahayn haddaan islaamnahay in la ixtiraamo waayeelka la ixtiraamo waalidka aayado qur'aana waalidka aayadda maxay xasho maxayd walaa taquul ufil lakumaa إذا ما استوعبتنا هرهما وقل رب وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سمين أيدي والد كأنه كله وحن الماء وآية قرآن أمر سواء ديسيبلين نربرها يا موقته إنه ورفع عن كيره إنه قول دعي إنه إله سيقصد ذلك ومارت وحنانه موقته وعني تربية الإسلام كمال لا نجارسي ما كان كهذا إنه أخلاق ذا موقته لكن marka dadkeen fiirisana akhlaaq inay jiraan mudaba dagaalka meesha yaalay iyo marka fadhi ku dirada marka fiiriso aflagaadada dhacaysa iyo xasdiga balaayada mugta war waxba ku noqon waxa hadaa wax ku noqonayna 30 sano ka badan xasdina wadna iyo reer hebelka ay farasku fiiqi isliidid mugta marka aan soo koobo hadalka waan ku dheeraaday waxaan rabnaa war inaan culture-kii ku dabaqno islaamku wixii uu lahaa inaan practice u bedelno ilmaha yarka guriga markuu joogo haduu hooyo ixtiraam waayo halkan ixtiraam marka waalid macallin uma hayo macallin uma hayo mugta marka we care okay guriga waxay ka sameeyaan we care about that waxaan rabnaa ogaano inay dhaqan fiican guriga ku joogaan inay been ku hadlin mugta hooyada iyo aabi inay nala shaqeeyaan inaan ka jirno waxyaalaha xun ma inaan garaacayno lama baan la garaac hal arday wax lagu dhigto halka ma joogo laakiin waa ka qabanaa akhlaaqda xun mugta marka inaan ka wada inaan ka wadayna markay timaado math iyo science-na warna kama laha taa gaalana ma laha in fact anaga asal u ahayn taariikhdeena waa inaan barnaa caruurta insha allah waan la baraya in la baro islaamka kaalintuu ku lahaa science haddaad youtube gashaa ku qorto science and islam bbc documentary ciiddaasoo documentary nin la yihahdo professor jim alkhaliil ee arki doontaan insha allah iyo kuwo kaloo badanba ninkaa waa christian laakiin waa aabihiisa wuxuu ahaa moogta ciraaqi habartan waxay ahayd british marka wuxuu dib ugu soo laabtay inuu baaro raadkii islaamka uu ka geystay xagga science-ka iyo horumarka bini'aadanka moogtahay marka waxaa moodaa inaan ka dhiga xiranahay waxaan inaan annaga aan qayb ka geysan islaam haddaan nahay markii hore wixii aan bilownay iyo sii wateen reer galbeed mar baa jirtayba ay usoo dirsan jireen kuwa boqortooyooyinka ay minxa waxbarasho usoo dirsan jireen ciyaalkooda meelaha islaamka u xukumo marka insha allah halkan inaan ka bilaawno wixii wax lamida insha allah inaan sii wadno akhlaaqda aan ku dadaalno haddaa aragtay ilmaha inay xagga akhlaaqda ka liitaan bidis la tasha macalimadda wixii aad qaban kartaan saaxiibaad tihiine ilmahaasaa saaxiib ku tihiin mustaqbalkooda inaad ka tashataan oo tiraan maxaan ka qaban karnaa ilmahan xaafadda saanu ku yahay in wax ka bedelno ayadoo in kula xisaabtanta halkan ay taado guriga hooyo waxba noocaasa u dhaqmaysa guriga halkan aan ku xirina ciqaabtu waa intaa wax loo geysanaya ma jiraan lama garaacayo laakiin waa la edbinaya inuu waxaa la rabaa ixtiraamo waalidkii macallinkii inuu ixtiraamo markaana bulshada markaasuu anfici doonaa soo sax maaha hadduu guriga ixtiraam ku hayo macallinkina ixtiraam u hayo labadii macallin wax baraysa waa waalidkii iyo macallinkii iskuulka hadduu labada ixtiraamay insha allah bulshadana waxbuu tiri doonaa insha allah warka waan soo koobayaa tan waxay noo noqonaysaa routine insha allah mar kastay tana waan isu soo noqon doonaa labadii bil markii la joogaba mar baa la iswareysan doonaa insha allah eedana hadii la yidhaha programka intii kale macallimiinta sii wadi doona waa idin wareejinaa insha allah aada mahadsantiin salaamu calaykum waraxmat السلام عليكم دمانتي وانا ودا سلامي waxaan nagu salaamay salaanta islaamka waxa mahad ilaahay ba mahad kuniyo kow jeer waxa ilaahay loogu mahadiyaa inagoo soo sheegay wada caafimaad qabna oo caafimaadkeeni taam yahay awlaadeeni u bixini maxay haydaanay aan ugu imanay soo sheegay iskoolka horta waxaan ilaahay ka soo ku mahad celinayaa
maamul mukhtaar iyo dhammaan macallimiintoona kala saareen waxaan leeyahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloo mahad gaara u hayaa macallin maxamed oo ah macallinka maad aragtay awlaadeena had iyo jeer inoo xiftiya jecelna haddii la habsaamo iyo haddii lasoo dhaqsadaba inuu albaabka u hortaagnaado horta waad wada ogtihiin oo booramo oo dhan waxaa wada qaada basaskaa qaada wuxuu baskeenu uga duwan yahay dhiir markuu ku idhaaho waa lagaa hor dhaqaaqayaa laakiin isagu ilaa xitaa haddaad u labisayso uu ku sugayaa taasina waa mahad uu gaaru leeyahay maxamed waad mahadsantahay 1 jeer macallimiinta iyo waalidiintu labaduba garab bay u baahan yihiin macallimiintu waa toosiyihii waalidkuna waa dadaalihii gaadhsiiyey soo moogid dhammaan markaan waxaan leeyahay waalidiintan ay dantuna kulmisay waad mahadsantihiin soo dhaweynta iyo sidaad uga soo qayb gasheen xafladda macallimiintana waad mahadsantihiin intaasaan ku soo koobaya aad iyo aad u mahadsantahay ma sha Allah jazakallahu khair waxaan rabaa inaan 3 su'aalood ama ilaa 4 su'aal inaan ku weydiiyo insha Allah ta'ala oo muhiim noo ah hadii Ilaahay yiraahdo adigoo raaliya kadis kaaga dhignay sideed u aragtaa Himila School horta Himila School waa iskool aad u wanaagsan waxaan u arkaa inuu yahay iskoolka Booramo ugu wanaagsan maanta ahaan bisinkalka meega isku dhawba ma sha Allah maalinkii aan ilmahayga aanu keenay gaar ahaantayda deynantooda waxba ma kala aqoon maantana English wax laga yaabaa kelmadaha qaar inaan iyada ka faa'iideystaba ma sha Allah thank you Saadiya horta waan ka xumahay habeenkii waa shaqeeyaa ilmahayguna iga hor seexdaa laakiin waxa jira marmarka qaar khamiista iyo jimcaha inaan ku dadaalo inaan waqti la qaato marka inaad jeegareyso majority aan khamiista iyo jimcaha ayaa waqti ii go'ana laakiin inta kale oo dhan waan kala hor seexanaa aanu 4 shaqo galaa waxaan ka soo baxaa 12 iyadna 9 waa ilmo yar oo seexanaysa marka khamiista iyo jimcaha ayaan ku fargarayn isku eega inaan wixii oo dhan aan dabaro mar haddaan inta kale aan awooday assalaamu calaykum markay kale aad iyo aad baan ugu faraxnay iskuulka maxay toole markaan ku soo daray yarta ilaa maalinka maanta isbedelka ku yimiday waxbarashadeeda markaan eegay runtii aad baan ugu farxay markay mar walbaba iyadoo soo xafiday maxay ahayd dhan walbaba ii sheegto maalintii aan ku soo daray wax badan oo ina garanay maanta ay garanayso runtii aad baan ugu farxay iskuulkana iyo maamulaha iyo macallimiintana waan u mahadnaqayaa wax badan insha Allah waana laga dayan insha Allah waxaan ku rajaynaynaa in lagu soo biiriyo intaa in ka badanba waanan idin salaamayaa ma sha Allah ma soo koobi karo heer sare ilaahay idinka iskuul ballaaran buu noqon aad iyo aad buu fiican yahay si wanaagsan baan u arkayaa wallahi inanteeda runtii wax badan oo ilaahay baa leeyahay wax badan oo markii aanay xafidsanayn garanayn bay maanta aad iyo aad markaasaan maskaxda inta laginay ku jirto hadaan mooday mar hore aan ku sii kaxayn wallahi runtii halka ka sii wada sii dadaalo oo noo samraa inankaasi khayr Allah siiyo marka inankaan aad baan ku mahadnaqayaa sabab hadduu iska xanaajiyo naga cararo dee wax dhici lahayd anaguna dhinacuunu carari lahayn laakiin runtii wuuna sugaa samarkuna waa sheeqaale anaguna waanu mahadnaqayna ma fahanti marka waxa weeyaan waalidkuna aad iyo aad bay idinku mahadnaqayaan